maanta waxaynu halkan ku soo dhaweynaynaa laba inan oo dhalinyaro oo in badan aynu social media kala soconay deegaano badan oo dhulka Soomaalidu degto soo maray dhalinyaradaas aynu maanta ku soo dhaweynaynaa magaalada Abakor waa magaalo waxa weeyaan ay si gaar ah maanta uga leeyihiin magaalooyinkii kale waayo inamada mid kamid ah ayaa magaalada ka soo jeeda waxa weeyaan magaalada waan ku soo dhaweynaynaa Abakor iyo deegaanada hoos yimaadaba waxaan leenahay ku soo dhawaada wax weeyaan Kama Abakor ama Abakor hadba si loo yaqaano waxaan aad ugu soo dhaweynayaa si gaar ugu soo dhaweynaya marka hore Xamse oo isagu waxa weeyaan markii ugu horeysay tahay xarir ku soo dhaweyn maayo isagu in badan buu arkay waa ardaygaygi maalintii uu saxaafadda bilaabayay qofkii koowaad ee ku dhiiri galiyay inuu saxaafadda bilaabo anigu ahaa isagoo standard 7 ah marka xarir oo halka maraya inaan ku soo dhaweeyo Kama Abakor anigoo macalinkiisiya ilaahay bay mahad oo dhami u sugnaatay aad iyo aad waxa ugu faraxsanahay maanta in maad aragtay magaaladeedii aan imi way mahadsan yihiin dadkaygina inayna soo booqdaan oo inoo yimaadaan Abakor waxa aan maanta si gaar ah aan ugu soo dhaweynaynaa sida macalinkayguba sheegay saaxiibkii Xamse Shaacir Cabdi Baaruud oo maad aragtay nin samafalaa oo wanaag ka shaqeeya wariye gamadiid waxaan ku wari aad iyo aad ugu soo dhawaada magaalada marka koowaad maanta aniga farxad gaar ah bay tahay maanta inaan magaaladan imi halka kani waxa weeye waa waxaan ku wari ahna halkan ka ahaa weeyaan halka kan macalinkaygi baa taagan waa runtii oo maalintii koowaad ee ay niyadda iga soo gashay inaan saxaafad bilaabaan isaga u tagay waxaan ku tuhmayeyna waxay ahayd wanaag fara badan iyo inuu ahaa macallimiinta iiga duwan sidii baan ula tagay oo aan idhi macallin hawshaasaan rabaa inaan gale ka waran wuxuu igu yidhi xaggaa iyo xaggaa toonaha eegin waxaan ku idhi gal sida wanaagsanna u maad aragtay bahashaa u isticmaal sidii wanaagsanayd baanu macallin ilaa maanta ku wadnaayo midhahaaga wada aragtaa khayr badan ilaahay ha ku siiyo halka kan sidoo kale waxa jooga walaalkay Xamse Cali Koosaar eedaday oo aabahay la dhalatay halka ka arkaya ilmaabtiyaashay baa jooga dhammaan dadkaygii oo dhan baa halkan jooga farxad gaar ah bay tahay inaan u imi oo aan la joogo oo waliba aniga iyo saaxiibadayba ayna soo dhaweeyeen waxaan ku yiri mar labaad iyo mar saddexaad oo u mahad celinaynaa waana ku mahadsantihiin in saaxiibaday aad sida quruxda badan ee milgaha iyo wanaag